Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahey qaaligaas kusoo noqod wanaagsan. Maanta saa arkaysaan inta waxaa ku haysanaa cambo iyo strawberry iyo avocado. Geedkan arkaysaan ilmaha aad iyo aad u jecel yihiin. Babyga wax ku siiya cuntada fruitiga hadii ahayd liinta macaanta cambaha wax kasta oo bajaq afka ku gashan karaa waa lagu siinaa wayna fududahay. Marka maanta waxaa jeclaysteen in la wadaago cabitaan ilmaha aad iyo aad ugu fiican oo nafaqo badan siinayo. Marka cuntooyinkaas siisid dhalada ugu shubi kartaa aad u jecel yihiin. Marka hadda waxaa ku bilaabay strawberry meesha ugu shubay wax yariis oo biyo ku shubay. Marka hadda intaas isku shiida intaas si fiican marka isku shiido wax yar ka bacdina waa miira. Waxaa ka rabaa oo kaliya in biyahaas ka rabaa oo strawberry-ga biyihiisa ka rabaa in cuniga siiyo oo maasha Allah ilmaha aad u korayaan wayna ku fiican yihiin. Marka saa arkaysaan hadda cabitaankeena noo shiidoyaa marka baaquliyashaas ama isku daboolka wiilashaas meesha yaalaan ku shubana. Marka ku shubto firinjeerka hoosaas ka gelina. Marka geliya lacala markii uu baahdo ama babyga cunto siinayo sida cabitaankiisa uu diyaar u noqdo soo bixina halka xabo misaasadiisa ugu shuba sidaas oo ku cabaa. Marka Ilaahay ha barakeeyo alxamdulillah inta haysan Ilaahay ha siiyo. Marka intaas isku soo shiidaysa arkaysaan maasha Allah wax yariis oo wax ka dhigay biyo si oo ilmaha oo biyo uga heli karaan. Marka hadda inta ku soo shubana inta saas ay noqotay maasha Allah arkaysaan halkaas fur oo caagaas isku daboolka ku soo shubtay. Intaas waxaan gelin doonaa hadhowtii fridge-ka isku daboolana. Marka cuniga cuntada siinayo qada siinayo quraacda cashada saddexdaas oo ahaata biyihiisa biyo caadintaas leeyahay sidaas oo nafaqo leh siina. Marka yaa war idinku daalin asxaabteeda qaaliya hadda saa arkaysaan waxaa ku shubay cambo iyo liinta macaanta qolofkii iyo mirihii dhan waan ka soo saaray dhaxda. Intaas marka hadda soo shiidaa maasha Allah intii waa soo shiiday cambaha iyo geedkiisii inta ku soo shubay arkaysaan maasha Allah babyga wuxuu siinaa nafaqo badan. Hadda summer la galo ilmaha oon badan qabanayaan waxay u baahan yihiin kula dadaala cabitaanada fitamiinaadka oo aad ugu fiican yihiin dhirta marka saa arkaysaan haddana waxaa soo sameynayaa avocado-ha ilmaha actually real aad ugu fiican tahay waa recommended marka hore saaid ugu fiican yihiin jirkooda. Marka walaashida qaalida ilmaha ku dadaalno cuntadooda waqti aan ku siino cunooyinkooda ka fikira muhiim waaye xiliyadan oo kale markii 6 bilood iyo ilaa 1 sano u dhaxeeyaan ilmaha koroshimadeeda aad muhiim u tahay insha Allah inta hooyo way taqaanaa. Marka hadii xataa ilmaha yar oo cunto cuneynin ku tijaabi cuntooyinka u badal kala nooc si marba shalay waxa siisaa ku soo xilinin insha Allah inaa ka faa'iido doontiin ayaa rajeynaa videogan. Maasha Allah cabitaanadeen sidaan nagu soo baxeen waa arkaysaan saddexdaas ku soo dhigay waana fududahay hoosh la yareen ilmaha markasta markay baahi qabato markaas wax u shishiidaysa ma ku sugayaan maahino. Marka waxaa fiican in waxaagu ku diyaarsan yahay hooyo diyaarsanaa noqotiin. maasha Allah inta cabitaanka marka uu soo dhameeyay firinjeerka uu soo geliyay haddana waxa uu soo fiiqayaa jablin liintana waxa rabaa in uu shubo babyga geed oo oo ku dhuuqayo ugu shubaa kaasoo ku isticmaala xabad laba xabad ku gelinaa si oo markuu guriga joogo iska baashaalayo oo marba afku gashto haddana ilkaha soo baxayaan marka ilkaha cunayo marka inta ilkaha uu ku faa'iideysana waa kaya maasha Allah
geedkaas aad u fiican yahay. Waxaa kasoo iibiya dukaanka Williska ama IKEA ha ahayo. Inta Sweden joogto way yaqaanaan. Meel kastana waa lagu gadaa dabcan. Marka maasha Allah qofkaas yacni yariiska ah ka fiiqaa. saas oo ku siinaa liinta wax ku jirta fiirna wax ma ku jirto midkaan. Marka intaas labadaas xaba ugu shubana babyga marka gacanta ka saarano. maasha Allah asxaabteeda in habna ka heli doontaan saawijiin mahna bajaq waaye afka dagalisto hore ku soo daadana biyaha. Marka insha Allah waxa kale oo soo sameyn doona video cuntadiisa hadiya yacni oo barnaamijkaas oo kala ka heshid like tinota waxa uu ogaado inta qof oo yacni jecel videoyada cuntaha ilmaha la siiyo mishaarig in waa soo wada oo gurigan ku sameeyay oo dukaanka ma baahnid inaad ka soo gadatid insha Allah.